السلام عليكم kusoo dhawaada janalka Amina Cooking and Henna maanta waxaan sameynaa bur yar oo insha Allah aan sameynaa qaabka u sameynayna waa in tusaa insha Allah waa kana inta buran kusoo shubtay caagan sokor inta igu jirto xabad ukun baking powder kan wax yariis ka isticmaali doon wax yariis aad u yaraan ka isticmaala qamiir sawaaye ma fixiso leebata sida u taqaan iyo caano iyo biyo caanaha waan ku yareynaa insha Allah biyaha inta badan la iskaga qasi karaa laakiin wax yar aan ku daraa waa isku soo dardaraa kulli ila socdo insha Allah cusbo yaraan ku daraa markii hore ma ku darin wax yaraan ku daray insha Allah waa isku soo qasaa insha Allah kulli waa isku qasaa jileeca sida aan ka dhigo qaabka u sameeyo waxa dhan insha Allah waa idin tusaa markaan qaso sida laga rabo inuu noqdo insha Allah burkana inta rabaan ku sii darsanaa waa soo qasaa insha Allah ila socdo ma sha Allah waa kana cajiinka waa soo qasay inta arkaysiina isku soo dardaray si fiican u fahanteena rajayna qaabkana ka soo dhigay jileeca sida inuu ahaado kulli waa fahmi kartiin oo malayna sidaas hadhow waxa la sameeynaa marka la dubaay gacanta wax yar biyo iska marnay waa soo jaraysa saliida ku dhex ridanaysa ya insha Allah marka dubana waa idin tusaa sidaas ka soo dhigay kulli waa fahanteena rajayna insha Allah isla socono ilaa iyo dhamaadka qaybta dubitaankan waan idin tusaa insha Allah markaan soo dubo waxa idinka iloobay hore ma laga dubaayo inuu khamiiraan suga insha Allah khamiirka dhamaayaan iga hilmaamay raali ahaada waxaan sameeynaa intoo khamiir 30 daqiiqan suga insha Allah markaasaan soo dubaa niyadii aan ku haystaa laakiin ma idin sheego ibraal noqdo insha Allah sida wal socdo ما شاء الله وكنا ونسوق ميري وندبها إن شاء الله سليدة الدبك صارنا ما شاء الله وندبها ما شاء الله تبارك الله بركان سيدان ayuu ku soo baxay malaban kor ugu shubay hadana waa arkaysin ana ugu shubayo soo tijaabiya hadii aad ka heshaan insha Allah like share commentiga quruxda badan la ayaan ka arki doonaa insha Allah like na siiya inta fiidiyowgaygan daawanayseena waad ku mahadsantihiin maca salaama assalaamu calaykum